kulanti wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahay wanaagsan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey dhowr iyo tobankii saac ee ugu dambeeyey oo aad usii xoogeysanaya sii deynta maxaabiista somalilan ee gacanta ay ku hayaan SSC Khaatumo iyadoo dhinaca kalena ay barbar socdaan in maxaabiista la isweydaarsanayo oo maamulada SSC Khaatumo iyo somalilan ay maxaabiis isweydaarsanahayaan horey waxaan u ogsoonayn in labada maamulba shuruudo adag ay ku xidheen isweydaarsiga maxaabiista iyo weliba sii deynta dhinaca SSC Khaatumo hal shuruud ayay ku xidheen sii deynta maxaabiista tirada badan ee somalilan ee ay gacanta ku hayaan dhinaca somalilanna hal shuruud ayaa iyagana u taalay sii deynta ama isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac ay gacanta ku kala hayaan haddaba maxaa kasoo kordhay maxaa isbedelay shuruudihii mahalkiiba yaa tanaasulay maxay tahay maxaabiista SSC Khaatumo ay sii daayeen ama ay sii daynayaan codsigii ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo waxa kasoo kordhay ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu allaydmo waxaan qodobkeena labaad iyadana ku dul istaagi doonaa dowladda Puntland oo beenisay warqad baraha bulshada lagu baahiyey oo tilmaamaysay ama sheegaysay in ciidamada difaaca hore ee SSC Khaatumo ku sugan gaar ahaan kuwa tukaraq iyo weliba difaacyada kaleeto ee SSC Khaatumo ee Puntland ama ciidamada Puntland ee difaaca SSC Khaatumo ku sugan in laga jartay miishaarkii iyo saadkii ciidan kadib markii lagu dhawaaqay maamulka SSC Khaatumo amaba ay bilaabatay hanaanka lagu aqoonsanayo maamulka SSC Khaatumo ee bishii ugu dambeysayba qabanqaabadeedu ay socotay wasiirka amniga oo warqad soo saaray ayaa jawaab adag ka bixiyey warqadaasi baraha bulshada lagu baahiyey waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kaleeto mid iyo labo ka dul istaagi doonaa hambalyada dabaaldega dunida daafaheeda ka dhacaya ee loogu dabaaldegayo looguna hambalyeynayo maamulka cusub ee SSC Khaatumo iyo aqoonsiga dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dhawaaqday ee ay ku aqoonsatay maamulkaasi SSC Khaatumo inuu yahay maamul goboleed rasmi ah oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyadana waan soo qaadan doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya aragtidina nagula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay dhowr iyo tobankii saac ee ugu dambeysay waxaa aad baraha bulshada u haysato soo xoogeysanaysa isweydaarsiga maxaabiista maamulada somalilan iyo SSC Khaatumo maxaabiista ay gacanta ku kala hayaan ee lagu qabtay dagaaladii 2023 dhex maray labadaasi maamul horey waxaan u ogsoonayn sii deynta maxaabiista iyo isweydaarsiga maxaabiista labada dhinacba inay warar ka soo saareen dhinaca SSC Khaatumo haddaynu aynu ku horeyno hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo mudane cabdiqaadir oo cali firdhiye dhowr jeer ayuu ka hadlay sii deynta maxaabiista iyo isweydaarsiga labadaba waxa uu tilmaamay oo uu ku soo celceliyey in sii deynta maxaabiista ay gundhig u tahay ama ay ku xidhayaan hal shuruud oo keliya in somalilan laga helo nabadgelyo buuxda oo aysan dagaal kusoo qaadaynin deegaanada SSC Khaatumo balse inta ay sheeganayaan deegaanada SSC Khaatumo ay leeyihiin waa dhul somalilan xoog baan ku qabsanaynaa dagaal baan ku qaadaynaa huwan baan soo afjaraynaa kooxaha waxa weeye isku dhafka ee argagixiso iyo filaan ee gobolada bari qabsaday hadallada noocaasa ee dagaal hurinta colaadeed inta ay dhinaca somalilan kasoo yeerayaan ee ay dagaal deegaanada SSC Khaatumo usoo abaabulayaan lama sii daynaya buu yidhi wax maxaabiisa mana dhici karto in maxaabiis la sii daayo haddii ay isweydaarsi dhacayso tiro isla eg ayaa la isweydaarsanaya oo markaan 50 sii dayno 50 baa naloo sii daynaya oo weliba lagu eegayo darajooyinka iyo sida ay iskugu qalmaan waxa uu meesha ka saaray oo kale in aan la sii dayn karin iyagu saraakiishii hogaaminaysay maxaabiistaasi gacanta lagu dhigay ama saraakiishii ugu sarreysay ciidamadii somalilan ee ku sugnaa gooja cadde iyo agagaarka magaalada Laascaanood ee lagu qabtay dagaalkaasi sida Faysal Cabdi Bootaan iyo saraakiil kaleeto oo 40 iyo dhowr sargaal ah oo gacanta lagu hayo haddaba dhowr iyo toban dhinaca somalilan aynu dhamaystirnay dhinaca somalilan iyagu waxa ay dhowr jeerba ku baaqeen in maxaabiista la hayo shuruud la-aan lagu sii daayo oo micnaheedu ay tahay dagaalkana halkii ha kasii socdo
maxaabiistan ayaan darajo iyo tiratona loo eegini inta aan haynaan sii dayno inta SSC Khaatumo ay haysan ay sii daayaan. taasi markii la fiiriyo iskuma dhigmaan maxaabiista gacanta lagu hayo oo dhinaca SSC Khaatumo kun ku dhawaad ayay gacanta ku hayaan halka Somaliland ay gacanta ku hayaan wax ka yar ama tiro ka yar 100. dhowr iyo 10 saac ugu dambeeyay xogo intaasi ka duwan ayaa soo baxaya. waxaa la sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre uu codsaday tiro maxaabiisa oo mas'uuliyiinta SSC Khaatumo uu ka codsaday 50 maxbuus ayuu ra'iisul wasaaruhu codsaday baa la yiri. lama cadaynin 50kaasi ma magacyo u watayba qaasa oo loo soo dhiibayba ma tiro 50 kaliya ka raba oo cid ay doontaba ahaatee 50 maxaabiista ka mid uu raba ma dhinaca Somaliland buu la hadlay oo 50 kale sii daayuu leeyahay lama garanayo. laakiin oo lama cadaynin micnaha lama garanayo ma waa la garanayaa oo mas'uuliyiinta uu la hadlay oo ka codsaday kulli way garanayaan laakiin lama faahfaahinin oo bulshada iyo warbaahinta looma soo bandhigin. waxaa lagu koobay xogta hoose dustay oo waliba mas'uuliyiinta SSC Khaatumo aysan ku dhawaaqin in 50 maxbuus oo maamulka SSC Khaatumo gaar ahaan waliba firdhiye uu ka codsaday. firdhiyana uu yidhi golaha wakiilada bal ku laaban golihii wakiilada oo kulan kala qaatay oo uu ka codsaday in 50 maxbuus ra'iisul wasaaruhu uu codsaday isla markaana maadaama uu arrin guul ah uu SSC Khaatumo u horseeday oo uu ku dhawaaqay oo maamulka dowladda federaalku ay aqoonsatay in la siiyo 50 maxbuus ee ra'iisul wasaaraha uu codsaday. golaha wakiiladu waxaa la sheegay in madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo ay u gudbiyeen ama ay la wadaageen oo sheegeen in 50 la siin karin 25 maxbuus lagu wareejiyo. haddaba xogta dhowr iyo 10 saac ee ugu dambeeyay bulshadu ay wadaagayeen ayaa tibaaxaysa in 25 maxbuus ra'iisul wasaaraha loo ogolaaday. arinta marka meesha taala waxay tahay 25 loo ogolaaday raalli ahaado waa 25 maxbuus 25 maxbuus ee loo ogolaaday maxaa lagu bedelanayaa ma 25 SSC Khaatumo lagu soo bedelayaa ma 25 xanuunsanba oo ra'iisul wasaaruhu la iska siinba ma 25 mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolada Somaliland oo ay codsadeenba maxay yihiin 25 kan qaab noocee ayaa lagu sii daynayaa sideese ku dhici kartaa in la sii daayo iyadoo weli dagaal ay socdaan. 25 kan horta waxaa la sheegayaa in ra'iisul wasaaruhu uu codsaday 25 konton kale lagu soo bedelo oo uu doonayo in isweydaarsiga maxaabiista uu bilaabo si markaa maxaabiista dhan la iskugu bedelo oo markaa kulba tiro la eg loogu bedelo. dhinaca Somaliland waxaa la sheegay inuu wada hadal la galay oo uu yiri maxaabiis baa la idin soo daynaya kulli wada kale tuu maray oo dad kale tuu maray baa suurtagal inuu asagu toos ula hadlayba in markaa ay bilaabanaysa maalin dhow isweydaarsiga maxaabiista ayay wararka xoogeedu ay u badan yihiin. guul bay u tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan in maxaabiistaas labada dhinac la isweydaarsado. dhinacana maxaabiis baa ka xidhan haba yaraato dhinaca sokana maxaabiis badan bay gacanta ku hayaan oo markaasi haba badnaadaan ama haba yaraadaan siday doontaba ha noqoto laakiin in tiro la eg la isweydaarsado darajooyinka iyo sida kale yihiin la isku waxeeyo waa muhiim waa arrin marka muhiima. ama maxaabiista markaa Somaliland ka xidhan 100 markii loo sii daayo 100 SSC ay soo daayeen ama intay gacanta ku hayaan haday 100 ka yartay 70 iyo wax weeyaa leeydi inay sii daayaan si markaas inta kalena looga xajoodo oo Somaliland iyada naftirkooda markaas sida ay wax ku doorayaan markaas lagula gorgortamo. laakiin ma dhacayso in maxaabiista la sii wada daayo oo la yiraahdo Somaliland mee qaadaysan 70 kuwana mee qaadaysan 700 sii daayo 700 idinkana 70 ka sii daaya welina dagaalku waa socdaa suurtagal ma noqonayso macquul ma noqonayso. shacabka SSC Khaatumo ayaa si weyn uga falceliyay arrintaasi waxa ayna sheegeen in aysan marnaba dhacaynin in maxaabiista dagaal la sii daayo inta Somaliland ay dagaal abaabulayso. waxay xoojinayaan hadalkii hogaamiyaha SSC Khaatumo mudane Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye oo weli run ahaantii uu ku adkaysanayo inaysan dhacaynin maxaabiista Somaliland in la sii wada daayo inta Somaliland ay dagaal soo abaabulayso. shuruuda ugu fiican ugu muhiimsan ee maxaabiista lagu sii wada dayn karana waa in Somaliland laga helo damaanad qaad inaysan dagaal ku soo qaadaynin deegaanada SSC Khaatumo oo ay qirto in laba maamul oo darisa ay yihiin. haddii taasi laga helo oo micnaha Somaliland xad loo kala sameeyay SSC Khaatumo was maxaabiista shuruud la'aan baa la sii dayn karaa
maadaama dagaal lagu qabtay labada dhinacna ay dagaalamayeen shuruud la-aan baa lagu sii dayi karaa SSC Khatumana waa lagu cadaadin karaa in maxaabiistaasi lasii daayo walow rag dambiya dagaal geystay oo dad badan laayay oo madaxa suuqay ay ku jiraan oo Faysal Cabdi Bootaan uu ka mid yahay kuwaana loo baahan yahay in si gaar ah loola xisaabtamo haddana in la sii daayo oo wada hadal iyo heshiis amni lagu sii daayo oo labada dhinac la gaadhaayay waa iyada naftirkeeda waa arrin muhiim u ah deegaanada SSC Khaatumo iyo dhinaca Somaliland waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho dhinaca kale dowladda Puntland ayaa jawaab adag ka bixisay warqad been abuur ay ku tilmaameen oo baraha bulshada lagu baahiyay taasoo tilmaamaysay in maamulka Puntland ay mushaarkii iyo saanadii ciidanba ay ka jarteen ciidamada Puntland ee ku sugan jiidaha SSC Khaatumo ama jiidaha dagaalka ee SSC Khaatumo ee usoo gurmaday xilligii xaaladdu ay adkayd ee SSC Khaatumo ay dagaalka kula jireen maamulkii Somaliland sidaan wada ogsoonahay ba ciidamo badan oo Puntland ayaa ku sugan jiidaha hore ee dagaalka tiradooda lama sheegin laakiin cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland waa xaqiiqo inay ku sugan yihiin jiidaha hore ee dagaalka gaar ahaan aaga Tukaraq iyo sidoo kaleeto waliba aaga Sarinta inay labadaba ku sugan yihiin ciidamo Puntland ah oo markaasi u yimid hil walaal in SSC Khaatumo ay garab ka siiyaan dagaalkii xooganaa ee ay kula jireen dhinaca Somaliland ama dagaalka xoogana wali ay kula jiraan dhinaca Somaliland warqadan baraha bulshada lagu baahiyay dhowr iyo 10 saac ee ugu dambeeyay siyaabo kala duwan ayaa loo qaada dhigayay Puntland jawaab bay ka bixisay wasiirka amniga oo warqad soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in ay tahay warqadaasi waxba kama jiraan isla markaana aysan jirin wax Puntland ciidan ah oo jiidaha SSC Khaatumo ku sugan oo mishaarkii laga jartay waxaana la amray oo lagu wargeliyay laamaha amniga ee ay qusayso in ay tallaabo adag ka qaadaan dadka propagandada baraha bulshada ku baahinaya ee warqadaha been abuurka soo saarahaya ee markaasi doonaya in ay amniga khalkhal geliyaan isla markaana iska horkeenaan maamulada SSC Khaatumo iyo Puntland waxaa kaleeto warqada lagu xusay in Puntland ay weli xoojinayso garab istaaga SSC Khaatumo adkeynta difaaca iyo sidoo kaleeto la dagaalanka kooxaha nabadiidka ee dhinac walba ka imaanaya taas oo markaasi ah waajibaad Puntland ay gudanayso waxay tilmaameen inaysan waxba ka jirin mishaar iyo sidoo kaleeto ciidamo laga soo saaray jiidaha hore amaba qorsho hadda Puntland uga yaala oo cad inuusan jirin oo aan ahayn ilaalinta amniga iyo sidoo kaleeto midnimada wadajirka wax kaleeto oo markaasi meesha ku jirana aysan jirin warqadaha baraha bulshada lagu baahinayana ay tahay mid been abuur ah isla markaana waxba kama jiraan Puntland meel adag bay ka istaagtay difaaca SSC Khaatumo deegaanadeeda iyo sidoo kaleeto deegaanada Puntland laakiin waxaa jira dad baraha bulshada ku baahinaya warqado been abuura oo markaasi sumado u eg sumadaha maamulada intay soo qaataan markaasi u adeegsanaya oo doonaya inay isku dhuftaan maamulada ama ay been abuur markaasi ka sameeyaan jiidaha hore si markaasi ciidanku khalkhal amni ama khalkhal uu u galo oo furimaha hore ay u soo baneeyaan waa suurtagal in kooxahaasi ay la shaqeynayaan maamulada Somaliland iyo kooxaha waliba nabadiidka ee Puntland ay dagaalka kula jirto taasoo markaasi la doonayo in lagu wiiqo awoodda ciidan ama awoodda difaac ee markaasi Puntland iyo SSC Khaatumo ay kula jiraan kooxaha argagixisada iyo kuwa Somaliland ee doonaya in markaasi ay khalkhal amni ay ka abuuraan deegaanada SSC Khaatumo iyo dhinaca Somaliland marar badan ayaa warqado noocan oo kale baraha bulshada lagu baahiyay haba u badnaadaan dhinacan SSC Khaatumo oo markaasi la doonayo in la kala furfuro ciidamada Somaliland aan dhahna ciidamada SSC Khaatumo iyo kuwa Puntland ee markaasi ku sugan jiidaha hore ee SSC Khaatumo waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa anigoo Santaaga ayaa inala socodsiin doona halkaad naga daawanaysana waa page-ka gaarka ee markaasi wariye Santaag daahir iyo sidoo kaleeto page-ka weyn ee Warsan TV oo markaasi aad mar walba kala socon kartaan xogii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka anigoo Santaaga ayaana mar waliba halkan ku baahiya